war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxaa si adag uu uga hadlay weerar berigii talaadadii aynu ka soo gudubnay Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada Burundi oo qayb ka ah howlgalka ATMIS ay ku lahaayeen deegaanka Ceelbaraf oo dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka Hirshabeellana hoostaga. Antonio Guterres wuxuu marka hore si kulul u cambaareeyay weerarkaasi oo lagu laayay askar badan kuwa kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen, halka la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay ku qafaasheen askar halkaasi ku sugnayd oo u dhashay dalka Burundi. sidoo kale waxaa taxsi tiiraanyo leh uu u diray ehelada iyo qaraabadii ay ka baxeen askartii halkaasi ku geeriyooday. warka ka soo baxay xafiiska Antonio Guterres ayaa lagu yiri xogayaha guud wuxuu taxsi tiiraanyo leh u dirayaa qoysaska dadkii lagu laayay, sidoo kalena wuxuu taxsi u dirayaa dowladda iyo shacabka Burundi. wuxuu u rajeynayaa caafimaad degdeg ah askartii halkaas ku dhaawacantay, waxaana aan u rajeynaynaa in howlgalka uu sii xoogaysan doono, ayuu yiri. wuxuu intaasi sii raaciyay Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu aad u bogaadinayo dhammaan ciidamada ATMIS, isagoo si qoto dheer ugu mahadceliyay adeegooda iyo sida ay uga go'an tahay in nabadii Soomaaliya dib loo soo celiyo. ugu dambeyn waxa uu ka codsaday guud ahaanba beesha caalamka inay kordhiyaan taageerada ay u fidinayaan howlgalka ATMIS si looga adkaado ururka Al-Shabaab. weerarkii ka dhacay Ceelbaraf waxaa Al-Shabaab ay sheegteen 173 askari in ay ku dileen, kuwa kalena ay qafaasheen, laakiin sarkaal u hadlay ciidamada Burundi oo ka tirsan howlgalka ATMIS wuxuu sheegay 30 askari inay uga geeriyoodeen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. ilaa iminkase ma jirto faahfaahin intaasi dhaafsiisan oo ka soo baxay howlgalka ATMIS iyo dowladda federaalka Soomaaliya. muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale si xogta xaqiiqda ah qof kasta ay u gaarto. mahadsanidin.